السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو كورساقون channel magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan. Maanta muuqaalkan waxaan kugu la wadaagayaa sidii aad u soo galin lahayd web page-kaaga muuqaal iyo waliba cod, sidii aad audio u soo galin lahayd iyo waliba video aad soo galin lahayd. Marka waxaan hadda soo kicinayaa software-kan isticmaali jirnay code editor-keeni Sublime Text. halkan ay wax noo marayeen oo daaqadani waa folder-keeni oo ay nagu dhex jireen waxyaabahani. waxaan sameynayaa sidii aan markii aan image ka soo gelinayba imageska u sameeyay folder gaar ah si aanay wuxuu isaga ka wada dhex qasmin. folder gaar ayaan sameynayaa video-ga, sidoo kale folder gaar ayaan sameynayaa audio aan soo gelinayo ama wixii codada. halka u sareysa ee folder-keena HTML-ka ayaan tagayaa, right click ayaan siinayaa, new folder ayaan odhanayaa. halkan hoose ay daaqadani kaga soo baxaysaa. marka daaqadani waa inaad marka magacii aad folder-ka u bixinaysay aad u bixiso. tusaale ahaan waxaan u bixinaynaa videos, wixii video ayaan ka soo gelin doonaa. kabacdina enter ayaad siinaysaa. halka sare waa kugu soo kordhay folder loo yaqaan video. sidoo kale mid audios ayaan sameynayaa oo codadaan soo geliyo. halkan ayaan right click siinayaa, kabacdina waxaan odhanayaa new folder, waxaan u bixinayaa audios baan u bixinayaa, kabacdina enter ayaan siinayaa. sidoo kale halkan waa kugu soo kordhay. haddaan imika ka baxoon folder-keeni tago, folder-keeni aan soo furay HTML nagu qornayd waa kan halkan inagu soo kordheen labadan folder, audio iyo video. labada folder waa kuwa inagu soo kordhay. okay, haddaba labada folder ee halkan inagu soo kordhay, audio-hana waxaan soo dhex dhigayaa wax dhageysiya, tusaale ahaan music-kan oo kale ayaan dhex geynayaa. waxaan dhex tagayaa folder-keeni audios ay ku qornaayeen. halkan ayaan kusoo dhex dhigayaa markaa wax alla wixii dhageysiya. sidoo kale wax alla wixii video-yana waxaan dhex dhigayaa isna folder-ka kale ee ay nagu qoran tahay videos. waa kan waxaan dhex dhigayaa video-gii desktop-ka inoo yaala markii hore. hadda labada video-ga iyo waxaan ku tijaabin doonaa iyo cod halka yaala oo music yar ah. kabacdi waxaan tagayaa software-keeni, waxaan qorayaa file cusub ayaan sameynayaa. waxaan odhanayaa new file. halkan ayaan tagayaa HTML-ka, right click ayaan siinayaa, new file ayaan odhanayaa. waxaanan odhanayaa save garee. waxaan tagayaa file, kabacdina waxaan odhanayaa save. waxaanan u bixinayaa videos and audios oo bixi .html ka tagin .html, kabacdina save dheh. markaad save tiraahdo hadda waxaan qorayaa intii laga maarmaanka ahayd in mar walba la qoro ee HTML. kabacdina angle bracket ayaan furayaa, kabacdina waxaan qorayaa h baan qorayaa wixii h ka kacaya soo baxaya, t baan raacinayaa, HTML ay soo baxaysa. kabacdina HTML-kan ayaan click siinayaa. waxaan isku qorayaa dhammaan intii laga maarmaanka ahayd ee mar walba in la qoro ahayd ama structure-ka ahayd ama root-kii HTML-ka. title-ka waxaan u bixinaynaa cod iyo muuqaal buu bixida doonto, cod iyo muuqaal. kabacdina command s ama control s taabo, isaga bax markaa oo waxaad tagtaa folder-kaagii desktop ku yaalay. halkan waxaa kugu soo kordhay videos and audios. haddaan double click siiyo wuxuu isku furi doonaa browser-ka. markuu browser-ka isku furo halkaa sare ee title-ka waxaa kaaga soo baxay cod iyo muuqaal. waxaan ku noqonayaa haddaba code-keeni. halkan board-ga dhexdiisa ayaan soo gelinaynaa videos-ka iyo audios-kaba. tusaale ahaan waxaan qorayaa tag loo yaqaan video, waa xagga labadan video baa soo baxay. kaas sare ayaan click siinayaa. kabacdina halkani wuxuu leeyahay opening tag iyo closing tag. halkan labada dhexdooda ayaan enter siinayaa, saasaan isaga durqinayaa. kabacdina waxaan qorayaa haddana angle bracket kale, source ayaan qorayaa. source markaan qoro enter ayaan siinayaa. halkan waxaa ka soo baxay sidii aynu ku naqaanay markii aynu sawirka soo dhiganay. waxaa noo soo baxay src oo source u dhiganta oo halkii uu inoo yaalay shaygu ama file-kan aan soo gelinaa. tusaale ahaan file-kan aan soo gelinay waa video. waxaan qoranaa folder-ku inoo yaalo videos binoo dhex yaala. waxaan qoranaa slash magaciisa ama video-ga magaciisa aan sheeganaa magaciisa. waxaan taganaa videos-kan video-ga inagu jira waxa ku qoran shortcuts rename baan odhan karnaa. kabacdina intan ayaan soo copysan karnaa, right click baan siin karnaa, copy. then waxaan tegi karnaa halkan ayaynu iman karnaa code-keeni. halkan ayaynu ku paste garayn karnaa, paste ayaan odhan karnaa. nooca uu yahayna waa noocma video-gani waa noocee tape-kiisu. waxaan tagayaa waan ku noqonayaa haddana tape-kiisa ayaan soo gaanayaa, right click ayaan siinayaa,
sidii sawirka properties ayaan odhanayaa waa mp4 type-ka file-ku waa mp4 kabacdina waan ku soo noqonayaa waxaan qorayaa dot baan qorayaa mp4 oo ah videogan type-kiisa hadda waxaan sameeyay tag loo yaqaan video ayaan qoray kabacdina closing-kiisa waa kan source ayaan ku dhex qoray oo src baan sii raaciyay oo source-kii sheegaysa waa folder-ku dhex yaala oo videos ah waxa kale ku sii dhex jira magaciisuna waxa weeyaan waa shortcuts.mp4 extension-kani waa ka uu wato videoda badankooduna ay wataan oo mp4 ay badankood wataan way jiraan extensions kale halkan tape-kana waxaan ku qorayaa shaygu waxa uu yahay video waxaana si raacinaya /mp4 oo tape-kiisiya inta markaan qoro halkan sare ee videoga ayaan ku noqonayaa tag opening tag space ayaan baxayaa waxaan qorayaa controls oo ka soo qoray enter ayaan siinayaa waan iska masaxayaa quotation-ka iyo iyagu shaba controls kaliya ayaan qorayaa controls-kani wax kale ma aha waxa weeyaan waa pause iyo halkii codka laga dalacayo iyo waxyaabahaas ku soo darasa inaan arki doonaaye sidoo kale haddana space ayaan baxayaa videoga bal inta uu leekaanayo size-kiisu ayaan qoranaa width waxaan qoranaaba 500 oo pixel ama pixel waad ka dhigi kartaa 500 baad qori kartaa kabacdina file ayaan odhanaa save ayaan odhanaa waxaan tagnaa browser-keeni waan refresh gareynaa hadda waa kan muuqaal halkan noo soo galay muuqaal ayaa halkan noo soo galay waa kan videoga noo soo galay haddaan imika bilaabo okay kusoo dhow korsaaqoon channel magacaygu waa Cabdullaahi Ismaan hadda halkan codkii waad ka dalaci karaysaa waa intii video lahaa halkan waa full screen tii intan halkan play iyo pause-ka halkan laga eriyo ama hadba halku socday aad ka geyn karayso doonayso halkan sound-ka ama volume-ka tan full screen-ka iyo tan kaleba waxa intan waxa u taagan controls qoraalkeena aan ku qornay controls ku qornay ayaa u taagan haddaan kan ka saaro intaas way ka bixi waan ka saaray haddaan file tago on save idhaahdo oo aan browser-kayga tago refresh gareeyo oo taa way ka baxday intii videogana sawir kaliya oo meesha taagan u noqday wax shaqeynaya ma noqon wax shaqeynaya ma sawir muuqaalka intiisa ugu horeyso baa soo dhigmaya videoga sawir buu noqonayaa marka videoga si aad u bilaabi karto oo u pause gareyn karto oo codkiisa u dalaci karto halkan waa inaad ka raacisaa controls kabacdina aad save garaysaa haddaan refresh gareeyo waxa ku soo kordhay waa kan halkan waa kan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aragnay hadda sida loo soo geliyo video ama video si loo soo geliyo audio-na waa inaan soo gelino audio-hana waxaan qoranaa isna sida kan oo kale waxaan qoranaa isna audio labadan tag sare ayaan click siinanaa kabacdina hoos ayaan iska daadeganaa source ayaan qoranaa enter ayaan siinanaa halka src-ga ayaan folder-kii noo yaalay audio tagan ku qoranaa magaciisa wixii noo dhex yaala folder-ka audio ay ku qoran tahay oo ka music mp3 ku qoran tahay waxa aynu ku qoranaa daba audios bino dhex yaala slash baan qoranaa magaciisa music.mp3 waa tape-kiisa oo waa halkan haddaad halkan ka eegto waa kan music mp3 wuxuuna ku yaalaa folder-ka audioska sidoo kale videoga waan eegi karnaa isna waa kan shortcuts ayaa magaciisa la yidhaha waana mp4 halkan tape-ka ayaan taganaa waxaan ku qoranaa audio/mp3 oo ah noociisa waxa laga maarmaan isna sidii videoga si lamid ah inaad controls raaciso oo aad halkan ka raaciso controls si uu play iyo u yeesho pause halkan audio ayaan tagayaa waxaan ku qorayaa controls ayaan ku qorayaa okay waxaan yar kala habaysto okay intaas sare waa videogii intana waa audiogii okay quotation-kan iyo tiraan iska masaxayaa markaan saas iska masaxo waxaan sameynayaa halkan ayaan br soo gelinayaa si ay videoga iyo audio ay isku hoos yimaadaan oo audio ugu hooseeyo kabacdina file ayaan odhanayaa save ayaan odhanayaa browser-kii baan kusoo noqonayaa halkan ayuu soo geli doonaa audio-huna okay waa kan hoosta yimiday isaguna wuu leeyahay intii haddaan controls ka tago isna intani way ka bixi doontaa meesha haddaan hadda play gareeyo ood aragtaa okay muuqaalkan maanta waxaan kugu tusay sida loo soo geliyo video iyo audio video kale waad soo gelin kartaa oo video badan waad gelin kartaa
kaliya intan unbaad koobiyeysanaysaa intan markaad koobiyeysto halkan unbaad ka bedelaysaa magaca wato videogaas unbaad bixinaysaa haddii uu tapekiisana mp4 unu ahayn halkan mp4 baad bedelaysaa adigoo dhex keenaya folderka aad u samaysay ee videoska muuqaalka maanta intaas ayaan kusoo koobayaa waad ku mahadsan tahay daawashadaada share like subscribe ha ilaawin thank you very much